أديك ما دي هاد إيش أقبل هديان أقول لها إن أديك تاي دراول كون وير مريل هنا والله قاتسين لها يكون أمر هورته هودا ذاك عليه بابورك كور مرسين لها يا كودا مربع دي أتشوي الأوغرسين سلام بعد وقتي نتسكلوا مسا ما عاد سوي سنيك ما كنت عيسان إنسان فيرا كتمر هذا هاي اسبطار إنها إدشين ميادرتها إدلها ما عاد سوقسها كو إجسي هذا كور واحد حسوتها أمالنا إنها دحرتها كدبنه واللي سوتها والله صعتها متى صوما سيدو رقص يا بدن له أيان كسب بحي حبسيها هذا مو حد دوني فيلم كان محل قلت ترجمة مرة ما دني حرتي استوديو واللي فام سوتها هنا بروج تصوح وين ما مقدشو هذا فيري أباها يمدي سفي عنه فيري بل ما والله باهنا بعدوغا قلنا تحرته هل حبت أوكلي أيا كفلا كحاوي أديها سنان سكينة السلام ها ما صدق هذيك أنا صدق تلي وحير إيساقي تلي بريان دم مقعة هودو سيمرو يانو فرصة يقف أيدينو هذيك كله قالها يسكروا إيش ثاني هذا مسكوين سوما لو ين الصاحبة هنو هذا دلوه حتى نعيق برنو سام مقعة إيش صاحب ما مركز كذي بحدقانو مقعة أوكي ديوالي حاجة ازديار هذيك مع معاني ديوالي حاجة ازديار محكود ها نو ديار إلين حفيزك أيا نقول بهاين لو بدينا بو نكين مرك يا حفيزك مسوق لك راه سؤال أنك ويدي بوليس كحبط إني وحكو حاليا ما أنا وحكي لما هايان مي أيجا واجب كسان بوليس كوحو يا شعب كذا أيجا إني دفاع عمر وليبة قاصد تدوينها أديك أيكو هذا الهاين ما إيه شيء كرتا صوبت أديك بنداري أدو ديش أديك أيان كلها هلايا ما هذا شدنا هذا ما أديك أيان كلها هلايا برعد نوع السكر مركان حبط كل فنان لو مبان عيد كلنا في الصحة قاته وبح بنانك بحيان كداي
iga raali noqo waan ku baryaa iga raali noqo rudraa xafiiska markii la joogo aniga boos ayaan ku hay balse guriga markii la joogo adiga ayaa boosiya marka iga raali noqo rudraa waad og tahay mar waliba aniga inaan adiga kaa fikiro xal walbo aad adiga u baahan tahana looma baahno biskoolad oo keliya inaad ku xallisid waxyaabo kale ayaa jiro oo wax waliba lagu xallin karo daruuri maaha inaad biskoolad ku xalliso dadka noocaas oo kale xabad mee wax kale lagu maxallin karo haddii ay sidaas tahay rudraa aniga waxay ila tahay adiga inaad caadaysatay dhawaqa xabadaha fanbroch.com 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 idhagaysta dhammaantiin waxaan rabaa gurigan wax waliba oo yaalla inaad ii baartaan waaya taliya adigana shaqaalaha dhan ii ballan waaya taliya horta aan xalay casha ku mashquuli laakiin intii cashada aadin ka hor waxaan maqli idoo dhays diwaari kaali cunto cun tali baawuskaas wax dhaafsan ma ogi runtii iga khalay meydkan idinka waxaan u baahanaa qaybta baaritaanka inaad u gudbisaan waaya tali waxaad ii sheegtaa waqtigii kuugu dambaysay aad adiga gabadhaada la kulantay gabartay shalay shantiya isoo wacday iyadoo weliba zaa'id u faraxsan gabarteena ma aha gabar isdilayso adduunyada rajo badanay ka lahayd inay isdishana gabartay ma laga yaabo laakiin booliska markay baaritaan sameeyeen waxay ogaadeen gabadhaada ayada inay gacanteeda isku disho su-aashuna waxay tahay sababta ay gabadhaada isku disho maxay tahay ii sheega taliya gabadheeda isbedelan ayada waa laga baan sheega ayada isbedelin gabadheeda adinka hadda waad bixi kartaan laakiin waqti walba waqtiga aan aniga idiin baahdo waa inaad imaadaan oo xaadir aad ahaataan waad fahanteen soo maaha malab taliya malab maanay sokor waay waryaaq adigan kula hadlaya igu ciyaari taliya waay dadkan kaxe ee ribood ka qor waay taliya waa idin horsaana isoo daba socda soo baxa maadaama aad tahay nin siyaasi ah weliba mas-uul haayo waxaad wax noogu sheegtaa arrinta kolleej kale maxaad ka leedahay wasiirka wuxuu noo xaqiijiyey ninka leeyahay rajeystiin in dambiyadiisa bannaanka la keeni doono mar dhowna waa keeninahay noo kaadiya wax yar noo suga idinka waxba ha ka baqina hadalkayga si fiican u dhegaysta haddiiba saddexdaas gabdhood oo xaqooda loo soo dhicinayn madaxda kursigooda in ay fadhiyaan waajib kuma ahan waxaana loo baahan inay isaga kacaan saxaafaddiinna waxaa idinka codsanaa hee warkaan inaadan buubuunin ood iska dhaaftaan fadaha kala baxdaan aniga waxaan doonayaa maadaama wasiirkii shaqadiisa u qabsan waaya shaqada dhan gabi ahaanba inuu iska casilo mudana waxay noo sheegay arrintan wax ka leedahay anaga aamusu jawaabna sii horaa waxaa loo yidhi war la qarayo qoran ayaa ku jiro aniga hadalkayga ma qarsoono wasiirka waxaan u baahanahay haddii arrinkan uu wax ka qaban karin sidiisa bannaanbo in uu is casilo sidaas ayaa ila wanaagsan
sali iga qabay reportka saddexda dhigay baarista anagaan ku samaynayni laba ka mid ah is yeesheen nooha kan saddexaad qaarad kale waad micnaa way isla hawaayeen ma iga hubtaa laakiin adiga sideed ku ogaatay sheeg waxaan inay xaqiiqo yihiin ila hadalba dilac bilaash magac dilac bilaash oo keliya ka noqon karaa sooma ee waxaa jiro mararka qaar mid cusbada laga iloobay iyo mid cusbada lagu daray marwada dhegeyso sidee ku fahmi kartaa mataqana dhadhankano markaa dhadhamisid aa ogaa kartaa kariimaad isku beddeshay saas la iska dheh أواكو سلام مدن وزير فريست سودايا مدن وزير بريان مقالة قلاسي دباتوين فربضان أيا كوبتين أرنكاس محاد واحد وقبل الذين سفي عن أيان أولو سعدا بريان مقالك إنو كلال بأن كجر مدسنا أنيقا وأن أقاي وحوال بنوان السعدا لكن مدس أنيقا ayaa wax ka qabanayo hadda fiiriya saddex gabdhood ayaa isdaldaleen ayaga naftooda leebis cid ay eebsanayaan ma laha dowladdana arrintaas shaqo kuma laha mana lagu eedi karo waad aragtaan shacabka say ii jecel yihiin 15 sano ayaan xukunkan hayaa oon kursigan ku fadhiyaa su'aalan ku weydiiya adiga maxaad ka dhileed dumarka waddankeena ku nool oo mar waliba xaquuqdooda lagu tunto oo la kufsado wax waliba waxa ay u baahan yihiin aan la siinin xaquuqdooda adiga ma u doodi leed oo xaqooda ma u soo dhici leed ii sheeg bal adigan su'aashaas ku weydiinaa bas waxaad ma sheegay saxaafadda haddaad tihiin danihiina oo keliya laad fiirinaysiin soo maaha aniga waxaan qabta war muu haysiin marna ha isku dayina dadkaas masaakiinta inaad ku been abuurataan ilaa wax u qaban maysaane war annaga wax baan u qabannaa laakiin idinka ma aragtaan waxaa lee rabtiin waxyaabo qaldan leh inaad sheegtiin oo si joornaalkiina oo idinkugu gadmo soo maa okay waxaasoo dhan ka gudub hadda waxa aad rabtaan inaan qabta ii sheega bal idinkaan idinka sugaaya ii sheega maxaad u aamusantihin annaga waxaan kaaga baahanahay dacwadda aad ku soo ogtay rutraa bartaab siim in aad dib ula laabato dadweynaha oo idilna waxay u baahan yihiin ninkaas dacwadaad ku soo ogtay inaad dib ula laabato marka ka laabo waa la laabtay dacwadii aniga booliska waan xushmeeyaa laakiin waxaan necbahay ninka booliska isku sheegaaya ee shacabka masaakiintan dembigan gelin dembi u yeelaayo ninaan waxba halaynin dhahaya ninkan khalad buu galay kadibna danihiisa gaarka ayuu fiirsanayaa si uu darajo u helo oo garaadda garbaa loo saaroona loo sacbiyo laakiin middaas waa khalad askarigaas oo kale annagu nama anfacayo shacabkana waxba uma qabanayo sababtoo ah waa nin danaysta gacan yare gaashaanlaha waxaad u sheegtaa askarigii xirnaa in shaqadiisa lagu soo celiyo oo hawshiisana hore oo u wato waana amarkayga halaasle ma layga rabino waa mahadsantihiin waa dadaasheen aditi gabdhihii la dilay arrintooda ka waran baaritaan dheer markii ay booliska sameeyeen kadib waxaa caddaatay gabdhahaas ayaga inaanan la dilin ay ayaga gacantooda isku dileen xitaa annaga dhiigaga qaar waan baarnay markii aan baarna kadibna qaar way isku ekaadeen qaarna way isku ekaan waayeen annagana la yaab ayay nala noqotay rutraa hadda adigan garabkaaga baahanahay
haddii aad ogtahay hawshan aniga keliya inaan ka soo bixi karo mar hore maxaad igu sheegi weyse iga daa ciyaarta rudra ay dhegayso aniga waxaan rabaa adiga hawshaada waxyaabo fara badan inaad ka beddeshid maxaa yeelay mar weliba waad aragtaa mar dalhi ayaa laguu bedelaya mar bombay anigana uma dulqaadan karo marba meel adiga in laguu bedelo hadda inta ayaa laguu soo bedelo mana rabo mar labaad in hadda meel kale laguu bedelo waa ku baryaa aniga darteeda u sameeye waayahay adiga dartaada ayaan iskugu dayayaa okay maya saddexdan gabdhood isma dilin ee waxaan rabaa booliska baaritaanka ay sameeyeen wixii soo saareen inaad ii keentaan siduu dhuqsiyaa badan waayaha taliya soo qabo taliya waa kuwansan keen halkaan dhig intaan saar fiiriba u fur asug waxaan rabaa simkaarkan inaad ii soo baarto teleefoonada laga diray iyo kuwa laga soo wacintaba lacagtan 5 milyan ah waxaan rabaa inaan ogaado qofku soo diray yuu yahay informationkiisa ayaan u baahanahay oo qabso midda kale waxaan u baahanahay gabdhaha college dhigto idil informationkooda inaad ii keentaan beela waay khataraatay ma lagugu ogeen waa u dhashti hallo aboo khatarka waa lagu yaqaan galab wanaagsan mudane inaan ku soo wacaan rabe kiiskii ma xasuusataa oo gabdhaha la kufsahayo la dilahay kiiskaas waxaan rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaad iga soo afjarta asiga dhambo mudane waxbaa ka walwali kiiskaas annaga ayaa gacanta ku hayna baaritaan dheerna ayaan ku haynaa iska daa marka adiga aniga waan la socdaa booliska inay dadaalayaan hawshoodana ay khatar tahay laakiin mid ogow adiga aniga ma rabo dartiina inay ceeb ii soo gaarto marka hawshaan iga soo dhammeey eena iga soo afjar waayaha mudane mid kalena iga dhegayso aniga ma rabo dhibaato kale inay dhacdo xadgudubkana waa inaad iska ilaalisaan hadalkaygana si fiican maanka ugu haay waayaha mudane reer mayaa caawihe boqolii lama boqolii saddex tabartaa ku tasho maamule waxaan rabaa warqaddan waxyaabaha ku qoran oo idin faahfaahin dheeraada inaad iga siiso waayahay Okay. soo baxa ina mari number accountkan qofka uu furan yahay manu sheegi kartaa waayahay sug simikaarka magaca ku qor waa jardadeefi adreeskana xaafadda 12aad laamiga dheer meeshaasay degantaa wicitaanka iswiceen oo idil faahfaahin iga siiya adreeskan waxaa iskale nin magaciisa ram adreeskane okay sirta ka sareeyaa joogay okay u sheeg asaa iga sareeya u sheeg u sheeg ha aamusine u sheeg u sheeg sheekada adres isii wadbal marwo lambarada iswiceen waa 9678 ninka iswiceen magaciisa waa ramdesh lambarka ugu dambeeya iswiceen waa furaha 9 6 79
kan jardiif yaa allah nagtas magaceeda sug baabuurka sheelara ka yaray gabdha arkay okay yaray wadi salaam ana adresa raba ina idin weydiino haddii aad iga caawin kartaan 12 xag kale xee bidix u leexo waa maasanta hay ma soconnaa igu sheeg ka kac break okay tartiibad baabuurka dhanka bidixna u leex halo harutra lambaro muhiim ayaan kuu sheegaya meel ku qoro 12 waa asiga naftirkiisa الباب اسكفر امير دبي قداه مكوج امير دبي waxa la dhahay meesha ma deganaa ku dhahay الله با صدمني ميا ادريسكي نلسي واك si fiican u weydin agta انا سوقت صلياد صول هلني ما قسنا انت دغنتها aan meeshan 10 sano deganahay 10 sano فيري كالي تي رجع ادريس بين وربحين بين كل اسكو بين اوكي هادو انا بانجلور ادا isla hadda tali maxaa dhacday ma kuugu tahay ii sheeg may tag meeshaas waa amarkayga waa tali bangalor xilligan adow kullee tali warbixintan waa mid cusub okay waay hasbibin waa caadi okay xilliga ugu dambeysay lacagta laga bixiyay ii sheeg meesha ugu dambeysay sondanagar ay ahayd saacadan waxay ahayd 12 subaxnimo intaas ognahay يا كو يتونك صوح نما ما انتس وما انت دلك لقيستي اوكي سيسي كام كحد وطيانو بهنا انت لي لكن مدس انك وامركي وانو بهنا وانا اركا يسو صار دخصو بس كفاده كده فيديو جيم يا يس soo dhaweey okay شنت صوح جميع طلي اوكي نكان سيرك سيوم باهنا نكان باندي صوم هديان خلدنين يا waa asiga naftirkiisa aqoon miyaad u leedahay وانا قانا مسخ مسخ ابي سوى هالو haye ii waran see tahay waa fiicana adiga maalmahan waaba lagu waayey be intee ka baxday ninkii baandhay ahayna booliska ayaa kaxaystaa la yidhi marka waxaan rabaa inaad soo ogaatid sababta ay u kaxaysteen waayah mudan iyo wax uu halay sida ugu dhaqsiyaha badanee amarkaas dadaal ninkan bannaanka u soo bixiya waa mahadsan tahay rameesh akoonkiisa adiga lacagta maxaad uga baxsatay ii sheeg rameesh iyow ya horta marka hore iyuu yahay aniga waxaan rabaa rameesh qofka uu yahay iyo adiga isagaba xiriirkeeda ka dhaxeeyo marwada waa iska ciyaare seed u hadle aniga dawladda laba kaaroo kaliya iyo ansixisa labadaas kaaroo kaliya ayaa isticmaalaa ninkaad sheegaysana aniga ma aqaano lacagtiisana lama bixin anigana uma bixin umana shaqeeyo seed u hadlaysaa marka waa kaftamaysaa umaleeha koob waa ku sii karaa xataa اها ولا الرميش ولا الرميش هي ما حدا معلومه هايستا ماشي معلومه سحري walaalkayga khatarka ah walaalkayga macana war dadkan waa waale magaxayga dib mala war qad maanta dan keenay waa kana fiirso waa biga naxsadeen isqaldiyaano ii sheegi kartaa xulba sax waan ku dhahay ha هاي صباح مش معجوك هاي وابحنا ciao اي صاحبكي رميش وان كحومها بوليسك gacanka u dhiga Soomaha ahay runtaada waa la kase maxay iga qaadaan inta idinka garabkayga taagantiin waa runtaada aniga garabkayga taagan hay inta idinka garabkayga taagantiin waxaan ku leeyahay inay wax iga qaadaan iska daayay tixsi korkayga saaran xataa maba buubi karaan aan ku iri horteeda ka taa
magaaladan waxaa ka dhacayo adigase maxaad qabanaysaa ii sheeg sidees wax u jiraan kiiska kuleedka ayaan baaritaanka weynaa war howl walbo aad qabanaysaan aniga ma doonayo booliska sumcaddooda iyo sharaftooda inay meel uga dhacdo maya mudan hal mid oo kalena waa kuu sheegayaa kiiskan waa dil haddii uu dil yahana waa feelkiisa inaad iska laabtaa marka adiga ha isku daalinin mudana waxaa waray dhegayso waa og tahay inaad gaashaan la tahay mana doonayo aniga sumcaddaada iyo sharaftaada in meel aad uga dhacdo weliba qof kale inay meel uga dhacdo hadalkaygana ka fiirso waana iga dardaaran ee dhagahaaga fur kiiska aad isku daalinaysana dadkaas ayagaaba is dilabo tan kale feelkaas waa la laabay adigana waxaan kaa doonayaa inaad feelasha kaloo cusub aad furato maayana kaas haba ku daalin ee dantaada kala raaco taas ayaan ku dhiilaya aniga sidaas ayaan ila wanaagsan yalla xarag waayaha mudane aniga ma aqaano waxa aan sameeyo arrintan ayaa garab igu siinay taliyaha aniga hadda wuxuu igu dhahay kiiskan xir waa kiis hore inaad dib u soo furtana looma baahna annaga hadda hal qof oo keliya ayaan helna halkii qofni markaan saldhigga ku soo xirnay waa la soo damiintay aniga maxaan sameeyaa taliyahana mar waliba wuxuu nagu soo celcelinaya kiiskan xir dib dambanaha u furin aniga waa yaabanahay aditi waxaad ogaataa madaxda ayaaba sidaan iska ah mar walbana looma baahna ayaga inaad taladooda qaadato oo keliya waxaa la rabaa adiga inaad is barto si aad ku soo saari lahayd dilaagas runta ah markaas kadib ayagaaba kuu imaana waxay ku leeyihin howl fiican id qabo maxaan sameeya taliyihii weyna ayaa igu dhahay dadkan ayaga gacantooda isku dilay iska daa arrintaana faraha kala bax haye additii adiga mid samee waxaad diyaarisaa kiis oo dil ah kadibna taliyahaaga u geey kiiskaas wuu dhammaaday wax la furi karana ma lahan wax walibana way dhammaadeen wax dhammaada ma lahan kiiska hadduu bilaaw yahay haa rusla lambar muhiim ayaan ku hay adiga meel ku qoro additii nambarka ay siisay wuxuu noqday nambar ay gabar leedahay gabadhaas waxaa loogu sheegay inay joogto isbitaalka markaan tagayna gabadhan way suuxsan tahay halkan ayay jiiftaa xaaladdeeda qof ogna ma lahayn jaabkeedna waxaa ka hela mobeelkan cid la socota xaaladdeedana ma jirto okay run ahaantii arrintan ma sahlana waxaan rabaa arrintan labadeena oo keliya inay nagu ekaato haddii ay macquul tahana waxaan rabaa ciidankaaga khaaska ah isbitaalkaas bannaankiisa inaad soo istaajiso si aan xogta runta ah aan u helno waxaana hubaa sidaas haddii aan samayno dilaaga runta ah inaan gacanta aan ku dhigi karno haye maxaad ka leedahay okay xilliga alimiintadaa la gaaray aniga horey waataan idinkugu sheegay kiiskan markii booliska ay baareen idinka naftirkiinna xataa aad isku daydeen inaad soo ogaataan arrimahan siday u dhaceen kulligeenna waan ka war haynaa siday xaaladdu tahay arrinkaanu wuxuu ahaa arrin isdil ah macnaha gabdhahaasi ayaga ayaa isdaldalay qofkii isku daya inuu arrinkaas si kale ka dhiga wuxuu la kulmayaa ceeb iyo weliba fadeexo aan weligeed la arkin marka isku daya wax walba inaad fahantaan aabakininigeegiisa shacabka iyo dadka gobolkan deggan oo dhan aniga ayaa mas-uuliyaddooda qaaday waad aragteen askarigii rutraa la dhahayay in la soo dayay qofka ka dambeeya waa aniga sidaas ayaan shacabka aniga ugu dadaalaa arrimahooda mudan xornimo ilowdana saacadaan waxaas baan baanaya naga dhaaf soco aniga oo keliya inaad ii sacbisaan looma baahna waa inaad u hambaliyaysaan booliskii rutraa la dhahayay waa inaad u sacbisaan hindiya ha noolaato waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin mudane hay okay halo rutraa cawbarigii caafimaadka waran barnaamij ayaa kula hadlaaya see tahay caafimaadkaaga waa kaa qaaday disaay wax kula hadlaaya disaay lambarkan ani rutraa ayaan ku ogaayay siday wax u jiraan ii sheeg adigaa kuu dhiiba lambarkaas aniga haysto war adiga maxaa u haystaa lambaraan leen tan kale lambaran adiga iska leen inaad qabsato waa sharci darro waana mamnuuc ninka taleefonka kalaa iguu gey sidee wax kaayna adiga jinni maa qabtaa waaya ninkii xildhibaanka ahayaa ku soo wacaya ma la hadli kartaa haddii aad raalli tahay okay keen telefoonka maxaa way adiga
okay waa rudra soo hadal war rudra adiga say wax ka yin taleefankaaga nin kale ayaga qabtay nabad ma jirto adigaan kula hadlaa horniyo wax kale maa waxa aan ku soo wacay waxaa tahay nin adag oo howshiisa ka soo baxay adigana waxaad mudan tahay in bilad sharaf weliba lagu siiyo laakiin waxaan kuu sheegaa waxqabadkaaga muxuu ahaay wixii ii sheeg waxqabad waay waxqabadkaagana aad ayaan ula dhacay laakiin waxaa la rabaa inaad hore u sii socoto oo aadan marnaba istaagin aad dadaasha adiga saas ayaa lagaaga baahan yahay thank you ha laakiin soomaali igula hadal aniga ingiriiska ugulama hadlin tan kale mar dhow waxaan rabnaa inaan doorasho qabanno waxaan u baahanahay booska ugu wanaagsan kaa adiga jeceshaa koo noqdaba inaan kaa siiyo marka adigaa lagaaga baahan yahay kan aad jeceshaa waxaasoo dhanna waxaan u samaynaya wax kale maaha waxaa tahay nin aad iyo aad u wanaagsan shaqadiisana aan la dhacay weliba shacabkana ay la dhaceen marow aad manugu dhiino baaritaanka waa sii wadeena laakiin waxaan kuu sheegaa anaga gabdhahan inay isdilin oo la dili le waa ku tuugaa wax leenoo qabo isdejiya murugta idinka idin haysa murug ka sii weyn ayaa annaganana haysa gabdhahaasna waan ogahay ayaga inaysan gacantooda isku dilin ee la dilo wax welibana annaga ayaa qabanayno fiiriye marka hore waan isdejisaan annaga dadaal waan ku jirnaa dadka falkaas geystina waa dad waaweyn adinkana ma loo baahno inaad dib u laabataan mar walba waxaa la rabaa inaad hore isii socotaan kadibna gabdhihiina xaqooda waan u soo dhicinaynaa waxbaa ka baqina unukoo dhanna garabkaagaan taagnay ma laga yaaba inaan ku cidlaano okay waad mahadsantihiin adigaa mudan run ahaantii dadaal fara badan ayaad muujiseen dadaalkaasna waa lagu faa'iiday xisbigeennana kor ayuu u kacay taasna idinka ayaa sabab u ah waxaana idin sheegayaa mar dhow in doorasho la qaban doono marka waxaan idinka rabaa aniga inaad igu soo shubtaan codka micnaha xagga lacagta ha ka walwalina anaa diyaar niila ah waa dadaasheen dadaalkiinana garab ayaan idinku siinaya aawe feelkii aan saxiixa keenba mudane iska aqriya maxaa dhacay adiga ma soo akhrinin miya oo sidaan miyaadba jaamacad shahaado ugu soo qaadatay tallaabo sharci inaan kaa qaado waaye wejigaadana ma arki karee iga tag maxaad ii hor taagan tahay soco waryaa tartar i dhegayso haye ninkii rudraa ahaa kiiskii gabdhihii la dilaayay ayuu ku daba jiraa gabar ka mid ane wuu heliyey waan gartay iska ilaali haddaba isu badnaaw aday kuu taallaa aniga shaqo ku meliya haddii lagu qabto hallow mudane dhiigga aan noo dhiibtay iyo dhiigga gabadha markay baaritaan ku sameeyna labadoodu waa islahaadeen okay anigaa imaanaya waaya mudane taliya xaaladda igu waran taliya xaaladda waa okay laakiin ninka halkaa taagan ayaan ka shakisanaha waayo saaka ilaa iyo hadda meesha ayuu taagan yahay hadal yaa ku soo dirsaday ila hadal qoryaad u shaqaysaa maad hadashid waxaad ku hadlaysaa adiga shiinays meed naga tag waryaa si ficil hadal hallow yaa ku soo adeegsad ii sheeg naga tag tacbaanya
sii ogaada magaciisu waa shankar waana rufyaan wuxuuna u shaqeeyaa wasiirka asigoo rufyaan u yahay waxaa macquula ninkan annaga soo xirayna ee baandhayaha inuu isaga sii daayo haba sii daaya ma xume ilaa hadda annaga waan la'nahay bilaa caddaynna waan nahay hadda maxaan samaynaa ii sheeg bal tale gacanteenna ayay ka baxda waxaan samaynana ma naqaano hawsha noocan ayaaba sidaan iska ah marna waad ku silcaysaa marna waad ku raaxaysanee marka sideje wax walba way iskagaagi doonaan laakiin waxaad ogaataa inta annaga hawshan aan ku guda jirno qof un bannaanku u soo bixi doonaa markaasaan runta helaynaa soo dhowow waan ku leeyahay hal iyo laba iga sii howlaha booliska siday u kala socdaan si wanaagsan ayay u socdaan gaashaan leh mudane xeriggan iga furan maa ii xirt haddii aan sidan ku socdo waa dhacaa haddaan dhacane meediyaha iga faa'iidaysanaa ceebtayday bannaanka keenayaan dhulka ma dhaafeeda dhada haddii aad xirtid hawshaada waa wadaye gaashaan laa tahay ha xishoonina xer baraabo waad dadaashay sidaan rabina waa samaysay laakiin xoogaa booraa ku yaalle isku day xoogaa boorka ku yaalla inaad ka qaaddo dhaqsee baraabo waad ka baxsatay gaashaan leh hawshaadana waa gudatay waa ku salaami maanta akhbaarta telefishinka ma fiirsatay maya maanta wararkan ugu muhiimsan waxay sheegayaan gaashaanlaha ayaa wuxuu sameeyey fal aad iyo aad u foolxun taasoo ah in wasiirka uu u tirtiray lugaha kabahana uu u xiray haddii uu mar aniga gaashaanlaha kabahayga ii xiray wax walba inaan samaysan karo adigu ma diidan tahay middaas waad og tahay wax walba aniga waa iga suurowdaa laakiin aniga arrin dacwo ayaan watay adiga haddii aad aniga ila shaqayso waxaa macquula wax walba inay ku hagaagaan jagadaadana haddii aad ku ugaarato waxaad ogaataa adigana markaada in lagu ugaarsanaayo carruur ayaad tahay sidaas darteed ayaan aniga wax kuu fahansiinoyaa waan baxay mudane aditi maxaa kugu dhacay
waxba okay maxaad la xanaaqsantahay marka iska daa oh disay ma adiga ها هاي فيل كان كوكينا ايش رايك سيفي عنا اسكيغا فيري اوكي ما سنت اوكي باي باي disaya feelkan ii keene ma aqaana ma iska akhrisid caawa maxaa kugu dhaco sidaan dhan kuu bedelay wax ii sheeg wasiirka ayaa ii yeeray haddana dhankiisa ayaan ka socdaa hay muxuu ku dhahay marka muxuu i dhihi lahaa maxishoodaas xunka ah aniga iyo ii hanjaba ka waran hanjabaad ah hanjabaad nocee wuxuu ogaaday kiiskan inaanan xirin oo aan dabagal ku hayno wuxuu iguga hanjabay inuu i dili doono وانا لصور انا حالتي لما ونكسن مرك وينك كل ورقنا حالك لما جرو ترتراي قبصوا دل حرانك
adiga dawac xun ayaad tahay shabeelkan lagama yaabo dawac inuu ka fogto adiga ma waxaad ku fikirtay intaad gurigayga igu timaado aad disho aniga ilaada tacsiyaada ayaan kuu soo diyaarinaa isdejiya dhammaantiin isdejiya tartiiba maxaa idinku dhacay hal su'aal ayaan rabaa dhammaantiin inaan idin weyddiiyo su'aashaasna wax kale ma ahan war nin gaashaanle eh inuu u tirtiro kobaha nin wasiir ah xaqaasi dawladda miyaa bixisay waa maya dad ciidanka booliska ka tirsan in gurigooda lagu weeraro ma sharciga ayaa dhigaya arrinkaas booliska magaalada maalmahan waxayba noqotay in ayaga xuquuqdooda lagu tunto arrinkaasoo dhanna waxaa ka dambeeya wasiirka in saas loo gala booliskana sharciga ma dhigaayo abadan wasiirkana wuxuu rabaa inuu ra'iisul wasaare waddankaa ka noqdo mana dhici karto halkaas ayaan uga baxay waa mahadsantihiin indii aan noolaato ina keena idinkana mudanaheena 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 xageed u socotaa aniga waxaan u socdaa maxkamadda sare laakiin sabab tanno iyo anjinaana meydkooda waxaa loo diray qaybta dambe baarista rudraa adiga isdeji wax weliba way hagaagayaan okay sore anigaa ku geenaayo soo baxay soo fuul matada waa mahadsan tahay galabtaan kulmaynaa aditi hee maalintaas haddaan kula soco lahaa waan dili lahaa eegaas yaa waaye wasiirka ayaan ka wadaa rudraa maantana meeshaan ma imaan lahayn adiga ma waalato maxaa kaa taas qaldan micnaheeda maahan wasiirka qalad duu galo aniga in aanan dili karin ama waxba ka qaadi karin haddii aan dilin waad igu xanaaqeen okay waan sii baxaa rudraa haa kalkaalis soo hadal mudan gabadha way soo naaxdee oo waa arrin fiican adiga gabadh sii ogow aniga had ku imaanaya waayahay aditii gabadh bay soo naxdo isbitaalka jiftay waa inaan baxaa oo meesha taga beelo waa arrin fiican akhbaar waliba in la soo socodsiiyo okay waaya adiga inaad cabsato looma baahno waayo gurigayga ayaad joogtaa amnigaagana waa okay magaciygana waa rudraa waxaan rabaa maalintaas waxa dhacay inaad ii sheegto
halkaan ila fiiriya wasiirka halkaan ayuu soo maraya kadibna meeshaan ayuu joogsanaya waxaana rabaa adiga meeshaas amnigeeda inaad ilaalisid tan kaleeto meeshaan markuu ka soo dhaqaaq kadib halkaan ayuu joogsanaya waxaan rabaa intuu dhexaysa adiga inaad ii ilaalisid oo ammaankiisa aad sugtaan magacayga waa buujaa kulaajkan hostelkiisa ayaana joogay aniga waxaana i dhalay kan tefi maalinta feestada jaamacadda ayay arrintan bilaabatay mudanayaal iyo marwooyin munaasabaddan maanta aad qaaliga u ah waxaa nagala soo qayb galay wasiirka wuxuuna noo soo lumiyey run ahaantii wakhtigiisa qaaliga ah wuuna ku mahadsan yahay mudane wasiir waxaan kaa codsanaynaa adigoo raallina masraxa soo kortid ilmahana aad u ducaysid waa mahadsantihiin run ahaantii maanta aniga aad ayaan u faraxsanahay maadaama xaflad weyn aad iskugu timaadeen dadaalka aniga aan gaaray qof walboo dadaalana wuu gaari karaa haddii aad hawshiinna sida loogu talagalay aad u qabsataan waayo wanaagga ayaa wanaag lagu gaaraa waxaan kaloon aad ugu faraxsanahay maatarajentii oo maanta ku guulaysatay xildhibaannimada baraabo aad ayaan ugu faraxsanahay horumarkan ay gaartayna dadaal dheerey iyada samaysay ayay ku gaartay wax walbana waa u fududaadeen ma cabsatay adiga sideen kaaga cabsanayaana ii sheeg ma cabsanaysiya waa ikicisa aniga dhan runtaa miyaana runta ii sheeg marka hore waan wada sheekaysanaynaa waana isfahmaynaa hadda iyo sheeka iga tag waa iga jijibisay wakhtigana waa iga dhammaysay maxaa waayahay iska dhaaf sheekada waanba iska dhaafaynaa ka warane dhaqsehe waxaad ii sheegaysaa hadda ii sheegno aniga wax kale kuma sheegi rabine waxaan rabay inaad hal tigid ii jarto ya hal tallaabaa soo qaaday kadibna wax kasta inaa heshidaa rabtaa haamaansanida may saas ma ahan ee aniga waxaan ka wadaa wax walbood iga codsatid waan kuu sameeya adiga waad isoo wacaysaa waxaad dhahaysaa meel hebel iigu imow anigoo hadal kugu soo celinin ayaan isla markiiba kuu imaadaa marka adigana waxaa loo baahan yahay sidaan kuu dalciyoo kale inaad ii dalciso wax walba ii samayso labadeennaba waxaa wanaagsan inaan isqadarino horta run ahaantii aniga waa jeclahay inaan wax kuu qabtoon ku dalliciyo laakiin sideen yeelaa aniga dabeecaddayda waxay tahay aniga waxaan jeclahay lee qofka inaan u sameeyo waa markay maskaxdayda ka soo go'do laakiin codsiga faraha badan aniga ma jecli wakhtigeeda waa inaad iska sugtaa oo aniga maskaxdayda aan ka maago waan ogahay laakiin maskaxle ma ahanba waxaa wanaagsan mar walbo dahay maxaa sameeyahe in mustaqbalka laga fikiro yacni aayaha dambano oo mustaqbalka ma ay tiri mustaqbalkii laga fikiro waaye maalin aniga asxaabteyda hal qol ayaan ku wada jirnay kadibna waxaa dhacday
itusiino waa fiirinaya waxaan itusiino waa idin baryaano adiga arinta waa ka yartaya waa ka yartaa maana itusiino maya abay wax maqal adiga dhibkayga dhaafaya wax yar u kaadiyo bal ma la tusina maxaad ku dagaysaan madax adeeg iska dhaafa ha abay markaa gaartid aan ku tusaa adiga degdegin wax yar u kaadi markaa gaartid la ku jiro suga bal hadda telefoonka dhacay ayaan fiirinayaaye waxa laga yaabaa hooyina baanaga dhaafna maxaa suubinaysaane halo hooy buujaa gabadheedii maxaa kugu dhacay adiga aniga asxaabteeda ayaa la joogaa asxaabtaada maxay tahayna ilaa iyo hadda hostelka aad joogtaa raashinka intuu kuu soo lugay muu meeshaada kuugu imaanayaan 2 daqiiqo le hooy waan imaanaya 2 daqiiqo mehe gabadhee guriga dhaqso ku imaan waan ku yidhi sidaas tala maahane way ugu damisay tanna asxaabteeda le ka dab wareega markii la arko maalmahan waxaan maqlay inaad hostelka iska xiraysa maxaa ka jira arrintaas ii sheeg bal midada kale wasiirka ku soo wacay telefoonka maxaad ugu dhegaysanaysaa gabar qurux badan ku joogtaa wasiirka maxaad ugu soo diri weysay gabadhaas fasaxeeda ayaa dhow idinkana waxaan ka rabaa gabadhaas inaad faraha aad ka qaadaan gabar inay macaan badan tahay isweydiin uma baahnaba carabtaana gabadha macaanteeda ay caddaynaysaa siida idinkii dhegaysta arrimahan oo dhan berriyan ka wada hadlaynaa xafiiskaas kugu imaanayna haddana waad bixi kartaan iga soo baxa gabadhan quruxda badan waa ka saa soomaa gabadhii bandhig fanaag samaynaysay wasiir gabar kale maxaa loo geynaa gabadhaan loo geynaabe tanaa xabatulloosooda maya ma fiirnis waa fiirnaa gabar cimrigeeda saama korbaysanaysa mustaqbal u baahan tahay shankar gabadheedu waa faraha ka qadan ku dhihi lahaa aniga oo ku baryaaya gabar mustaqbalkeeda laga shaqaynaysa digay u geynaa maalintaadi waryaay dhagaysaan kugu yidhi seediga waa inaad u sheegtaa gabdhaha islaameed inuu faraha ka qaada uu dareenkiisa uu xakameeyaa haddii ay taas dhici weysana kursiga uu ku fadhiya 2 daqiiqa gudahooda aan oga dejinaya wax ay ugu qaadanaysaa haba yaraatee ma jirtaan ku yidhi ee fadliga ilaahay ugu nabadgeliya horteedana waa inaad ka dhaqaaqdaa dad ka dhaqaaqi weysidna waxaadan oga inaad arkaysaan ku yidhi daqayo xunka ma fahamta hadalkayga dhaqaaq soco waryaa adigana naya iswalwalka jooji naya aniga aqoon iimalid magacayga waxaa la yidhahdaa shankar tartaraaye wasiirkana waa seedigayga seedigayga wax walba u baahan yahay waa in fadhigiis lagu geeyaa adiga iyo awood kuusii inaad ka hor imaado amarka seedigayga kawa ayaan kaa siinaya maanta kuwa deynaya sanju ninka shankara hooyaday ayuu dilay islaanta ayuu dilay indhayga ayaana ku arkay teeda kale wuxuu dhahay adiga iyo wasiirka xiriir ayaa idinka dhexeeyay ii sheeg bal runta sabiro miyaad ninkaas ka haysaa ma waxaad rabtaa inaad rakaatayso ii sheege arrintan darteed hooyaday ayaa ku waayay ii sheege sawirada iyo muuqaaladaa ka haysid dhaqsee ii sheeg maxaa samaynaysaa adiga waan ku salaamay sanju waxaan maqlay sawirada inaad qaali dadka arkaad ku gelinaysid soo maaha aniga iga qaad sawirka hadda sheenaan iga qaad sawa sheenaan iga qaad heno maxaa sugaysaa sawir iga qaad waad baqaysaaye haddii baad sidaan u baqaysa afaraas maxaa ku gelinay adiga waxaa kugu wanaagsan inaad waxaan gacanta kala baxdo haddii kale ogow adiga naftarkaaga waxaan kuu diraa tikidkii dheeraa sanju waa ku dhawaad waryaa shankar afkaaga dhadooyaan ayaan ku dhaha wasakhiyo aan edabtalen gabdhaha dhadooyaan aniga maalinkaas hostelka gabdhaha
waan ka soo baxay kadibna maba xasuusto waxa dhacay iyo siday wax u dhaceen waaye adiga markhaati ma dhaqan kartaa haa mudane waxyarkoor adigu waxaa ka hadlaysa caddeemo iyo masajo iyo video clip oo la duubay waxaas wax ma ogtahay ii sheeg mudane aniga maalintaas marka aan qoolka galay kadib waxaan weydiiyey arrimaha sawirada aaba ii sheeg kadib way naxday katiinadda ayay shaatigeeda ku qarisay okay ma xumo arrimaheeda wax ma iga sheegi kartaa aniga taas ma sheegi karo laakiin dabeecaddeedu waxay ahayd mar walba waxa u qaaska ah inay qarsato ay falaas ku shubato waxaan huwaa maalinkaas katiinadda ay qarinaysay iyo falaashkaba inay xiriiraan ay wax ka dhexeeyaan anigaa hubo halo tali dadku waa ay bateen codad kala duwan wax badan ayaa loo baahan yahay haa codad kale aniga ayaa dalba haddana waan ku imaanaya okay waaya waxaan idin sheegayaa wasiirka hadda waa uu maqan yahay xoogaa kadib ayuuna soo gaarayaa marka uuna soo gaaro ayaa wixii go'aan la gaari doonaa taas ogsoonaada hadda meesha waxaa jooga dad fara badan dadkaas waxaa ku jira dad ka soo horjeeda wasiirka horumarkiisa laakiin maaha midaan ogolaan doono anika wax walba ay yihiin waan ka nahay anaga warwarkaaga been waaye ha dhaco ninkaas Thank you.
mid kalena waa kuu sheegaa haddii aad isku daydid dareeskaada inaad ku ugaarsato ogow in adigana lagu ugaarsanaayo rudraa adigii halkan soo gudub bal soo dhowo اتفضل idigiis rudraa aniga gabadhaas askariyadda geerida aad iyo aad ayaan uga xumahay taas macnaheeda ma ahayn inaad shaqadaada uga fadhiisato idan nolosheeda waxay u hebaysay sharciga booliska oo keliya laakiin aniga waxaan ku qaldanaa hadalkeeda ayaa mar walba qaadan jiray laakiin hadda aniga waxaan samey rabo lagama yaabo dib inaan ugu laabto gaashaanle boolis ah miyaa sharciga khilaafayana haa aniga waan ogahay arrintan in aadan garab igu sii karin sababtay adiga waad dhibaysan tahay dhibku kaas ilaahay ruux u gaasiyo wasiirka wiis aad u nadiifiso
وأكوانا ورقدينا الأستاذ استاك waxa aad samaynaysa khalad weyn inay tahay mala socotaa aniga barcadaas wax walba uu qaato waxay ugu balanahay inaan kawka siiyo qofka askariga haddii uu sharciga khilaafo amaba uu ku xadgudbo dhibaatada uga imaan karta ma garan kartaa xumaanta in la baabi'iyo sideeda bannaanba dembi maahan idinkoo shaqadiinna ilaashanaayo ilaa goormee ayaa siyaasiyiinta ka cabsanaysaan lugahoodana aad tirtiraysaan ii sheega ilaa goormee war dareeskan annaga ayna siisay dowladda waxaana laga baahan yahay inaan sharaftiisa ilaalino siyaasiyiintana waxay rabaan ayay ka samaysanayaan taas macquul ma naqi kartaa marka ii sheega rudraab badraab siin waxaad qaaddaa tallaabo allaala tallaabada kula habboon ciidankaagana waxay diyaar u yihiin mar walba inay garabkaaga istaagaan annagana ma laga yaabo atiitii xaqeeda inaan u soo dhici weyno waan u soo dhicinaynaa howlgalkaagana sidaas ayuu ku bilowday xariifka waa kana si fiican u soo dhaweeya galaa idin dhahay كوكا سي عسكري قال حنكا
fanproj.com fanproj aan ku cafiyo jaceylkayga dib ma laga yaabo inay igu soo laabato haddii noloshaan kugu sii daayana dhibaato kale ayaad sii geysanaysaa aniga horey ayaan kuugu sheegay laakiin adiga ay fahmi waaye laakiin maanta waxaa la gaaray xilliga tacsiidaada si run ah aanu diyaarin lahaa shacabkiinan maanta halkan iskugu yimid marka ugu horayso waan idin mahadcelinayaa maxaa waaye waxaan maxay tahay waxaad samaynaysaan idinka gaashaanle kaalay maanta waxa meeshan aad soo dhigtay iyo aniga
jagadayda iyo sharaftayda maahin marka sababta aad wax keentay ma ii sheegi kartaa anigu waan fahmi la'ahaye kaale adiga aniga aqoon ma ii lihid miya shacabkoo dhanaa i raacsan adigoo askari laba xidiglaa aniga maxaad iga qaadi kartaa war gaashaanlihii ayaan farteeda ku maamulaayay haddas waxaad ogaataa aniga qofkan gacanta u qaaday inaan neefta ku celiyo war kaali ma ilowday adiga aniga hanjabaaddii aan xaaskaada u hanjabay ma ilowday mise anigaa ku soo xasuusiyo aniga garaafo ma ii gaarsiin kartid shacabkoo dhan ayaa i raacsan haddii aad isku daydayd inaad wax yar ii geysato shacabka ayaa hilibkaada sida dafadii oo kale uu kala dafaayo aniga ma ii taqaanid haye mudan wasiir hadal miyaa ku harsan haddii uu ku harsan yahay waad hadli kartaa laakiin hadda waxaa la gaaray xilliga aniga aan hadli lahaa adiga waxaad ka hadashay sharciga soomaa sharciga waxaa adkeeyay anigoo boolis ah adinka madax ayaa tihiin waxaadna doonaysaan sida eegiyoo kale inaan gurigiin idinku imaano kadibna kawaada intu tirin soo maa waxaad ogaataa hadda kadib amarkiina ma soconayo amarkiina oo keliya meeshaan ka soconayo annaga waxaan u shaqaynaa shacabkeena oo keliya fiiri shacabkeena adiga waxay ku leeyihiin fiiri meeshaan si fiican fiiri ninkaas waa nin xun gabdhahana sharaftooda ayuu ku ciyaaraa shacabkana xaqooda ma ilaaliyo waa nin aad iyo aad u xun wasiirkeena adinto wasiirkeena adinto wasiirkeena adinto wasiirkeena wasiirkeena adinto mudan mas'uul macdaysi adinto wasiirka mas'uul macdaysi filimkan waxaa lagu tarjumay studio Bambush Mogadishu mararka qaar adigoo fiirina wanaagga dalkaaga iyo shacabkaaga looma baahna cid kale inaad ka amar qaadato maantani waxay ugu badan noloshaada aniga inaan go'aan ka gaaro maanta go'aankayga oo keliya ayaa soconaya soo soco waxyo dhegaha timaha ku leh soo soco ayaan ku dhahay dulli ayaa aniga ku barsiinaya